السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشافي حسين عيد عمر كلايد الله كسر هذا شافي فيلمز أفلوجز عاوة وحنا لين هاي نعرين عن مرة رك حلي فيديو هراء كحلي حرقي عبد الملك موسى علدون ومرة رك كحلي فيديو هراء كحلي وضع وتمال مرينيا عاوة هذا بوحة كسر عصبان هذا عاوة حنا كنا ديكو هيا متكملة هذا عبد الملك موسى علدون بارح وذا حرير معنات السمية إما كان خدك كتيرة bal waynu wareysan doonaa xaaladda Cabdimalik Muuse Coldoon halka ay ku dambeysay iyo sida ay ehelkiisu uga falceliyeen xariga Cabdimalik Muuse Coldoon iyo maxkamad la'aanta iyo xaaladda halkay marayso hadan wacayna bal aan wada dhageysano. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Ali Maxamed Roble. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شافعي حسين عيد آدي أدونك وصلاة الله. ولا آدم كوسو دوينيا ضد بدن نوي waxaan malaynayaa de way sugayeen arrimaha Cabdimalik Muuse Coldoon iyo meesha uu ku dambeeyay in maxkamad la saaray in la xukumay iyo meesha uu ku dambeeyay cid war ka haysa ma jirto oo badan dadka waxa ugu war dambeysay markii la qabtay ugu war dambeysay horta ku soo dhawow channel-kayga Shaafi Films and Vlogs baan ku soo dhaweynayaa caawa فيديو هرانا وان كجا هذا عبد الملك وان سوقليي channel كيجا سوقليي عاونا وان كفر أحسنها هنا ذكر قيد قاطع سيد علي وبرنامج كان وحلا هذا دي أنا وحن وما قدر لها ودود حق اللي بناها مركا كسود وين يا سيد علي مركلا هذه ضد ما صنتهي ولا شافعي حسين عيد وحنا كمان نقيا كمان بينيا بقول halkan lagu soo dhaweysay adigu soo macsuuntay oo ah barnaamijkaagan aad kaga hadasho dhibanaha muwaadinka dhiban ha si fiican marka aad baan ku soo dhaweynayaa Cabdimalik Muuse Coldoon bal waxaan doonayaa walaal Cali oo aan ka dhax galay waxaan doonayaa bal Sayid Cali oo inaad bal naga soo warbixin kooban maadaama heladina kamid tahay aadna haddana aad asxaab u haydeen oo aad isugu dhaweydeen Cabdimalik Muuse Coldoon bal inaad warbixin kooban naga siisay horta Cabdimalik Muuse Coldoon noloshiisii hore intii uu saxaafadda ku jiray iyo intii dambaba bal warbixin yar oo kooban baan doonayaa inaad noo soo koobto aniga dadweynaha waad maasantahay Shaafici Cabdimalik Muuse Coldoon sidoo ogsoonahay wax weeye uu xiran yahay haddaan ku horumaro Cabdimalik Muuse Coldoon Cabdimalik Muuse Coldoon waxa uu ahaa ama uu yahay waa nin ku suntan samafalka waa nin ku suntan garbistaaga iyo gargaarida masaakiinta ama danyarta andhaha iyo dulmanaha Soomaaliyeed ku nool meel kasto ay Soomaali degto iyo afka Soomaaliga ku hadashaa si fiican Cabdimalik Muuse Coldoon wuxuu ku suntan yahay oo kale cid kasta oo bedeli karta ama wax ku soo dari karta diinteena suuban iyo dhaqankeena iyo xaq iyo xorriyadda muwaadinka Soomaaliyeed Cabdimalik ma ahayn qof dalkiisa Somaliland nacab Cabdimalik wuxuu ahaa qof u hadla xaqa qofku leeyahay iyo wax kasta oo lid ku ah diinta iyo dhaqankeena si fiican Cabdimalik wuxuu xiran yahay 20 qoor baa la xiray burca laga qabtay gurigiisa agtiisa laga qabtay Hargeysa ayaa loo soo wareejiyay Hargeysa ayuu ku xiran yahay alaanka iyo intii la xiray inta u dhaxaysay meel ku jiro iyo jeel ku jiro iyo meel maxkamado loo keenay oo ku xiran ma jirto si fiican waxaad leedahay imika alaanka maxkamad lama saarin meel sharciga lama horkeenin waa la qabtay waana xiran yahay saamid ka wada waa la qabtay Cabdimalik maxkamad lama keenin qofna marka oo wax weeye la qabto ilaa oo la xukumo wax weeye dariiqa dhigo lama dambi lagu macdayn karo oo qofkaas waxa leeyahay waxa weeye waa shaki waxaas wixii inta ka horeeya marka sidoo ognahay Cabdimalik wuxuu ka hadlay kilibku dambeeyay lagu qabtay wuxuu ahaa inuu ka hadlo gabadhii aragtay diinta fidinaysay iskuulkan abaarso ama jaamacaddan abaarso hoos timaada
laakiin sayid cali oo meel la oran kari maadaama ayadiiba carartay inay wax isku hubtayba oo ninkan cabdimaalik arrintii loo soo qabtay iyo qofku ka hadlayba hadiiba ayadiiba carartay inay wax isku ogeedo waxaanu sax ahaayeen oo ayadii carartay ma la oran kari saas shaaficow waxa weeye dadka waddanka jooga iyo dadka dibadda jooga sheekh iyo shariifba daa kama saarna inay gabadhu waxbarashada iyo maamulnimada meesha u joogtay wax intaa kuma koobnayn diintii fidinaysay naagtu naag kristaana bay ahayd waxa weeye mabda gaara oo waxa weeye dhaqankeenna iyo diinteenna waxa weeye iyo dastuurkeenna iyo muslimnimadeenna lidku ayay fidinaysay gabadhna way carartay waa la wada og yahay way baxsatay cabdimaaligna waxa weeye waxa musabix u haystaa arrinkaas u haystaa qofkana markuu muwaadil yahay xaq u leeyahay inuu ka hadlo wax kasta oo diinta iyo dhaqankeena iyo nabadgelyada ka hor imanaya si fiican marka cabdimaalig imika godku ku jirana alaanka waxa weeye musabixun baa og iyo CID-diisa dadkii uu ka dhashay iyo ehelkii oo kamid ahay waxa weeye meel ku sugan yahay iyo meel ku nool yahay iyo meel ku dambeeyay warma hayno marka waxaan leeyahay waxa weeye dalku iyo dadkuba iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan way u kaceen way u hadleen laakiin sayid cali laakiin aan ka dhaxgalay horta waxa weeye maadaama uu ninkan uu ahaa cabdimaalik ka soo jeeday gobolka Togdheer aadna uu ahaa nin ugu suntan oo geesi ka soo baxay sidii ay uga soo bixi jireen gobolka Togdheer waxa la yiraahdaa dad badan waxa ka soo baxa dad magac kule adduunka iyo maamuus amaba inta maxay wadanka Soomaaliya degtoba maadaama uu ninkan halka ka soo jeeday isla halkii in laga soo qabto oo haddana dhalinyartii iyo dadkii magaalada ku noolaa ama gobolka ku noolaa ay u mudaharaadi waayaan oo ay hal maalin isu soo muujin waayaan maxaa sababaya inay isu soo muujin waayaan ay dhuntaan shaaficu waad mahadsan tahay waxa la waddanka dimuqraadiyadda ka jirta laakiin dimuqraadiyadan la sheegayo ee Soomaaliland ka jirtay ee la leeyahay qofku xaq buu leeyahay dimuqraadiyadda qofku xaq buu leeyahay inuu hadlo inuu wixii aragtidiisa ee guracan waxa weeye cakis ku ah isaan hore soo sheegay diinta iyo dhaqanka iyo nabadgelyada xaq buu leeyahay qofku inuu ka hadlo marka waxa weeye waxa jirta caburin baa jirta shacabka la caburiyay xaq bay u leeyihiin wayna ka mudaharaadeen oo waxa weeye waa la xidhay ku mudaharaad waa la xidhay حقنا waxay u leeyihiin in ay wax weeye mudaharaadka sii wadaan oo muujiyaan oo wax weeye ay aragtidooda muujiyaan iyo waxay diidan yahay ogoliin baha sax oo wax weeye walaalkood oo wax weeye muslima oo muumina oo muwaadila oo wadanka jooga oo wax weeye xadara lagu haysto inay u hadlaan oo shacabku u hadlaan taasina loo ka baahan yahay oo wax weeye dadka Soomaaliland jooga in kasta aan wadanka aanan joogin dadka Soomaaliland iyo wax weeye dariiq dhigay mudaharaadaan si fiican dadka waanu uga halkan baanu ka leenahay fariinta ka faraynaan leenahay hortay dadka waxaan leenahay waa inay ka kacaan oo ka dhidhiyaan berina waxaan ku iyaguna qudhoodu ma hadli karaan oo iyaga qudhoodu cunaha la haystaa ma hadli karaan hadii ay u hadli waayaan taas iyaguna hadhowto ma hadli karaan ta kale caliyow meesha waxa ku jirta oo kale Faadimo Rooble oo dhashay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo aan in badan aan aqaano maamo Faadimo Rooble waxa weeye in badan bay xabsi iyo hargeysa iyo burco iyo meel u dhaxaysay iyada xaaladeedii ka waran marka xaaladeedii iyada ka waran see tahay horta caafimaad ahaan iyada qudheedu wallahi xaaladeeda waa dareemi kartaa hooyo ilmaheedii oo sharci darro oo ku xiran yahay cadaalad darro oo ku xiran yahay oo waxa weeye dhowr jeer lagu xiray imankana oo ku xiran yahay ودريمي كرتا هويو ديلمي دلقا حري هاوشيدا iyo dhibteeda iyo wax weeye iyo rafaadkeeda iyo murugadeeda iyo warwarkeeda oo xilmeed ku dambeeyo iyo wuxuu ku xiran yahay qofku markuu wuxuu ku xiran yahay la og yahay cad yahay ay tahay xaq darro waxa weeye waa ka daran duwan yahay qofka kale xaq ku xiran sax marka ilmeed lagu xiray xaq darro ku xiran yahay xaqudub ku xiran yahay cadaalad darro ku xiran yahay marka dee waa dareemi kartaa hooyo ilmaheedu intaas oo ku xiran yahay marka santu warwar baa haysta problem baa haysta marka waxaan leeyahay insha Allah dilay ka dhigo in ilaahay uga soo furo
إن شاء الله إن شاء الله aniga iyo dhammaan dadweynaha daawanaya channelkaygan ku xiran iyo kuwa daawan doonaba insha Allah waxaan ilaahay uga baryaynaa in sida ugu degdeg badan la uga soo furfuro gacmaha ka xaqa daran haysta Cabdimaalik Muuse Coldoon sidoo kale waxaan inta aan karaankayga waxaan ku dadaalaynaa in aanu anaguna dareenkayga aan dareenkayga qarinayn in halkan aanu marka anagu waxaan horta u tari karno ee aan maanta halkan aanu leenahay waxbaan uga qaban karnaa horta waa inaanu hadallo oo sheegno wuxuu xaq u leeyahay iyo saan uga xunnahay inaanu sheegno ayaan markastaba Sayid Cali oo horta halkan aanu anaguna ka soo jeedinaa dareenkayga aanu ka dhiibanaynaa oo aanu dareenkayga aan qarinayn baan halkan ka sheegaynaa laakiin Sayid Cali waxaan ku weydiin lahaa waxa nagu maqaalaa ama arrimahan imika ilaa maanta socday in Cabdimaalik gurigiisa la dhaco xaaskiisina la xidhay arrintan maxaa ka jirayda shafaaco aad aad ma santahay mar labaad in saddexaad walaal oo jirta in xaaskiisii iyo gurigiisii iyo ciyaalkiisii loo dhacay oo loo daatay oo ciidanka RRU ay u daateen qaybta Burco laakiin inta ka warhayo ilaa galabta ilaa maanta waxa weeye in xaaskii la xidhay ma jirto waxa weeye ma jirto lama xidhin si fiican hadday caawa la xidhin وما سنتي علي سيد علي سعد مركز دولة سعودية سيد علي وحن كنا كويدين لها إنك استودع سؤالها أنا هكذا كسو كوبي كرنا أو سؤالها ده إلى يكوي هراء سؤالي هراء إلى يدين مكوا عن حيو إنك أي أدب بديهين بس لكن أنا كوس قابين يا waxyaabaha lagu xiray ee imika aad ka xusi kartay Cabdimaalik lagu xiray maxay noqon kartaa Sayid Cali oo maxaad nagu soo gaabin kartaa aad isleedahay walaal waxa lagu xiray Cabdimaalik ku xiran yahay xaqad ka hadashay oo diintaad ka hadashay oo waxa weeye dadkan iyo gabadhan iskuulka dhigta waxa weeye carabtay gaalada ahayd ee diinta fidinaysay ayaad ka hadasho bariheeda gashay weeye saas Cabdimaalik lagu haystaa waxaan kaloo ku soo gabagabayn lahaa qofka muwaadinka xaq uu leeyahay Cabdimaalik xaq uu leeyahay Cabdimaalik muwaadinku kamid yahay Soomaaliland dalku yahay nin dalkiisa jecel buu ahaa waxa weeye qof kasta oo muwaadin xaq u leeyahay inuu wax kasta waxa weeye oo ka hadlo oo diinta iyo dhaqanka dhaawacaya si fiican marka waxaan leeyahay war dhalinyarta dalka inaga leh awiyasheen ba u soo dhintay waynu soo halganay waxa weeye in aynu ka hadallo xaq bayn u leenahay wax kasta oo cakis inuu ku ah diinteena iyo dhaqankeena iyo nabadgelyada cakis ku ah xaq bayn u leenahay Cabdimaalikna xaqa u heelinayay بالآدم بس يقولون إن بحق إلهي وهيلينيا وايو حق وكهالله وحيل ورد دين تاني وأنا قصة دولي أنت سون قلت في بجرا عاوة وكل حرية هي لقونا حكومين حاضرنا الله هيستعد Cabdimaalik Muuse Coldoon halkaan Sayid Cali waan kugu cali halkaas dad badan oo maxay hayday maanta magac iyo maamuus ku lahaaba Soomaaliland ba ka hadlay oo qaarna yiraahdeen waxa weeye waxa uu xaq u lahaaba in dilo la toogto qaarna ay yiraahdeen inuu xabsi daayin lagu xukumo qaarba ay dareen aan laga firanayn ay ku hadleen maxaad u maraynaysaa dadkaas anigu inay berito wajiga u yaala ama siyaasi hadana waxa ku hadlaya maxaa hadalka maxaa loo qaadan karaa taaqudheeda dadkaas waxa weeye wadad aragti gaaban waana in waxa weeye Muuse Bixi iyo aragtidiisa qalafsan xukunkiisa qalafsan waxa weeye raacsan oo waxa weeye la socda ilaahayna waji kuma laha waxa weeye dalka iyo dadkana u danayn maayaan sumcadna kuma yeeranayaan marka Muuse tiis noqoto ama Britain waxay ka digo sumcadna kuma yeeranayaan waxa weeye ilaahay dambi ka galeen qof diintii u hadlay oo farta ku fiiqoyay waryaareen halka waana ka soo galay halka waa lagu jira xaq buu lahaa inuu wax weeyo farta ku fiiqo qof kasta muwaadina adiga haato aniga haato qof kasta muwaadina xaq uu leeyahay farta ku fiiqo waayo diinta la wadaashanaya nabadgelyada waa la wadaashanaya dhaqanka waa la wadaashanaya waa la wada leeyahay madaxweyne kaliya waxa weeye diin iyo dal nabadgelyo ma wada ilaa karo shacabka oo nabadda ilaalinaya dhaqanka ilaalinaya waxa weeye dalka Cabdimaalik ka mid ahaa waxaan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan adigu soo macsuuntay aan kala qayb qaatay
aad iyo aadna waan kuu salaamaya sidoo kale sayid cali aad baan ku salaamaynaa dhammaan aniga iyo shacabkayga ama dadkayga igu xidhan janaalkayga ku xidhan iyo kuwa daawan doona dhammaantii aad baan ku salaamayna sayid cali iyo sidaad noo soo socodseen insha allah wixii akhbaar ee dambe mar kalena waan maxay waan ismaqli doonaa hadduu ilaahay ka dhigo waxaan kaaga tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu